shuunka kugu yaalo maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga ka taraan ahay jaamacadaha dhamee shuunaan kaa rabaa baraada luqadda ingiliishiga maxaa u dhahaa ka jawaab ma taqaanid shuunka ma taqaanid luqadda ingiliishiga ma soo baratay okay shuunka luqadda ingiliishiga waxaa loo yaqaanaa pubic hair waa pubic hair shuunka luqadda ingiliishiga waxaa loo yaqaanaa pubic hair هذا جوجل قلي pubic hair أصلا صح كوزو بحاجة هذا ميلو فايست لايك صار مقالك pubic hair سؤال شرطو أي ويدي كتاني تماها كل كيشة كسو بحان ما حولها لغة إنجليزية تماها كل كيشة ما حولها لغة إنجليزية تماها كل كيشة المتقاني شهادة ما يستاهل هذا مرة ما كسو بحاجة على وأدري أوكي تماها كل كيشة كسو بحان لغة إنجليزية وحالها armpit hair armpit hair waxaa loo yaqaanaa timaha shirtada kilkisha ka soo baxan armpit hair shaarbaha maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga tan waa taqaaniin shaarbaha maxaa u dhahaa luqadda ingiliishiga shaarbaha luqadda ingiliishiga waxaa loo yaqaanaa mustache ayaa loo yaqaanaa shaarbaha mustachna ma ahayaa waa mustache shaarbaha waxaa leedahay mustache yes hareedkaa la iska rabaa wallaahi oo bilahi oo talaatan ma sheegi kartiin wallaahi yaa ku dhahay ma sheegi kartiin hareedka maxaa lahaa timaha hareedka sheeg cara sheeg waa kaas wallaahi yaa ku dhahday ma sheegi kartiin okay hareedka luqadda ingiliishiga waxaa lahaa sideburn hadda baro sideburn ayaa loo yaqaanaa hareedka sideburn hadda waa bartay ma maalin kale ayaa lagu gaadin hareedka sideburn fadlan muuqaalka like saara sababtoo ah dhiirgelinaya ii tahay maxaa yeelay erayo muhiim ah oo inta badan iskuulada aan lagu dhigin ayaa idin dhigaa aniga okay qofkii aqli leh waa fahmi karaa fadlan like-ta waxba ma aha saar hadda thank you timaha faruurta hoostood tan hadda kan waxa waaye mustache waa shaarbaha waa kuu sheegay kan waxaa lahaa hareedka sideburn aa lahaa shuunka waa kuu sheegay waxaa lahaa pubic hair timaha kilkisha waa kuu sheegay armpit hair aa la yaradaa armpit hair kanaa kaa rabaa marka timaha oo faruurta hoostood ku taala qofkii sheego $2 uu leeyahay